السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي سيتهين في عنتهين حرجينا إن في عنتهين أنا جنا سيدو كلوا في عنهاي الحمد لله. كسر دوادا روتين كيجا صبح لماذا يسيدو كبلوضو يسيدا أماريه مان الله هيجا مركو حرجينا إن اللي جودين إلى دماتك هلا سو دواادو مشان وأرورتي صبح لماذا مشان waxaan ku diyaarinayaa quraacda ilmaha maadaama ay rabin subax kasta inay canjeero cunaan marka waa loo kala badbedelaa maadaama ay canjeerada aad u rabin marka halkaan waxaan ku soo shubtay ukun 3 xabbe ah caano koob halfkiis ah qolfo iyo heel isku shiidan iyo waxaan kaloo ku soo shubtay sonkor 3 qaad camal u dhiganto marka si fiican isugu soo qaraacaya ilaa ay isdhex gasho markaas kadib aan bilaabeynaa hawsheena biidnillah. marka waa kana hadda sidaan uu diyaar ku yahay kadib birtan way noo soo kululaatay intaan wax sii qaqasanayaan isku aadisanayaan birta dabka u sii shitay marka halka waxaa soo saarneynaa saxankeeni saxankan waxaan rabaa wixii aan sii dubaba inaan horey ka soo saaro marka waa kana waxaa meeshan soo qaadanayaa rootigaana rabaa inaan ukuntaas iyo waxaas intaan gelgeliyo aan si fiican u dubo marka hadda birteena waa diyaar si fiican u soo kululaatay saliid yaraan soo mariyay waa kana hadda marka hal soo saareynaa maasha Allah marka hal soo dhawaada hadee maalmaha ma iska maqnaayo waxaan rabaa inaan maalin dhaaf aan video soo dhigo insha Allah marka idinka igu soo dhiirigeliya comment iyo like iyo subscribe ka dhiga hilmaamin insha Allah waxaan intaan ku soo gaaray sida ay dhiirigelisaan waaye marka hadda waa kana sidaan soo yeeleynaa hal baan maxaa la dhahayo u soo gagad marka sidaan ku soo wadana insha Allah sidaas quruxda badan aan rabaa inuu ku soo baxo jileec uu noqonayaa ilmaha si fiican ay u cunaan badanaa way jecel yihiin anaga hadda 10kii dambe soonka sida dugsiga nagu la xiray waxaana loo furay maanta oo isniin ahana loo furay shala isniin aheeda la furay marka uu noo xirnaa dugsigeena marka hadda waxa waayaan ku dhahay fadhiga laga kaco hal is diyaariyo inta la soo nasan karo waa la soo nasday waxaa lagu laabanayaa nolosha dhabta aheyd ka processka u soo wadeena ilaa meesha u dambeeyso wax saas u badan inaan dubo ma rabo maadaama ilmaha u karinayo cid caadi waxa la rabaa in loo kariyo quraac caadi ah canjeero la'aanteed lama ahaan karabo marka aad uma soo badinayo hadda meeshan waxa ii dhiban oo kale 2 xabo kale ama 3 xabo kale ku soo darayaa kadib birtu waa iska soo daminaya xilligan adiga waa salaad subaxi kadib waxaan leeyahay marka ilmaha iska kala dirtid oo soo laabato maxaa la dhahay dugsiga geesid kadib la canjeerada dub hadda la qasay habeenkii aan jecel in canjeerada qasto subaxi baan qasaa marka inta ii soo qamiireyso baan maxaa la dhahay dugsiga geeyni waan soo laabanay markaas haddana canjeerada dubi doona marka waa kana hadda sidaan quruxda badan ay noogu soo baxday maasha Allah waana hawl fudud waqti badan kaama qaadanayso mar ilmaha loogu tuuro insha Allah marka hadda markaan diyaar u sameysano kadib dharka dugsigan soo diyaarinaa meeshaan aan soo feereeyay oo soo diyaariyay baagisi wixii u gelin karo cunto iyo cabitaan aan u geliyay alxamdulillah marka xilligan hadda waa jarmaadeena dugsiga aadeena kadib markaan soo laabtay kadib canjeeradeedii iska soo dubtay meeshaan aan beer soo dubay soo kariyay meeshaan cabitaankeygii shaahi vitaminskeygii wixii oo dhan halkaan ku soo diyaarsaday alxamdulillah marka hadda xilligan waa adiga 2 saac bar 3 saac subaxnimo waaye meeshaan quraan guriga ka soo shiday subax kasto aan jeclay guriga inaan quraan ku shido sidaasana barako iyo faa'iido badan ku jirta marka hal isbar insha Allah guriga in subax walba quraanka laga shido marka waa kana hadda meeshaan aan quraacdeeda ku soo diyaarsaday halkaan iska soo fadhiyo waxaan rabaa inaan maxaa la dhahayo quraan akhristo oo haddana qada karis karo subax hurdada intii maxaa la dhahayo taajidka la tukanayo dadka hurdada ka qasmatay hadda waxaan leeyahay bal subax hurdada iska daa habeenkii dhaqso u seexatid insha Allah marka waa kana hadda markaan quraacdeeda iska soo cunay guriga la soo hagaajiyay meeshaan aan guriga soo uuminaya halkaan dhexda guriga waaye dhexda gurigan ka soo bilaabaya uumiska qolka jiifkan soo uumiyay kadib meeshaan waxaan soo galayaa fadhiga cuntada guriga iyo shiirkiisa uga baxdo marka waa kana hadda baar meeshaan adiga waa 3 saac bar meelahaas waxaan rabaa inaan guriga dhan uunsi ku soo shido kadib
meelaheegan iska istaago inta aan dugsiga laga imaanin aan qadadeeda kariyo insha Allah. Marka waa kana quraanka saaka 12 aan guriga ka shiday ilaa hadda ka shidan wuxuu soconayaa adiga 10 saacadood camal 10 hours markuu u dhamaado quraanka sidama. Marka meeshaan dhar kale oo la soo dhaqaa meeshaan ku soo laabay qaanadan ku soo gurayaa qaybtan kore waa qaybta fanaanadaha iyo jacketska iyo garamaha bisa ku jiraan. Marka halkaan aan ku soo guray kadib hadana qolka ilmaha la soo hagaajiyay meeshaan asagana luubana ku soo shidaya uunsi yar aan isku soo dar kuma badinayo. Marka waa kana alxamdulillah xilligan ayadana waa 4 saac bar meelahaas kadib markaan qolka sidaan u soo hagaajisto baa waxaan sameynayaa jikadeedan ku soo laabanayaa waxa ii fiican anigana inaan waqti hore jikada ka baxo oo qadada iska kariyo oo hal mar ka soo farxasho meeshaan marka waxaan soo karsada baastada hilib iyo waxba kuma soo darin qudaaraan ku soo daro waxaan ku soo kariyay yaanyo iyo daaniis sanjabiil waxa saldaataan ka soo dhigay cream yaraan ku soo daray maxaan dhahayo cooking cream maraan soo gelin doona insha Allah kadib waa kana qudaartaas aan ku soo daray ilmaha hal la baro inay qudaarta cunaan maalin kasta hilib ma la cuni karo ilmihi hadii hore qudaar loo barina hadhow adigan dib ay kugu noqonaysaa kaama cunayaan marka maalin dhexda loo geliyaa hilibka dhanbo cirka loo fiiriyaa marka waa kana hadda qadadeena sidaan quruxda badan ay ku soo baxday ma sha Allah waa diyaar waa isku soo saldaateeyay kadib meeshaan jikada soo galay waxaan rabaa inaan cabitaanka soo shiido hadda adiga waa 5 saac bar waxaan rabaa salaada duhur la gaarin jikada inta ka farxasho dugsiga marka laga imaado anaga dugsiga ilaa waxaan dhiganaa duhurka bas ilmaha way yarihiin duhurkii wixii ka dambeeyay dugsiga ma dhigano aan iska seexiyo marka hadda waa kana cabitaankii hadda soo jarjarnaa meeshaan cambo iyo waxaan rabaa inaan isku soo jarjarto avocado ma duubin sidoo kale babyga yariiska asagana cuntadiisa dabka u soo saaray marka wixii oo dhan isku soo dabaridaaya alxamdulillah marka waa kana hadda anagoo cambaheena soo jarjaranayno boobsiisa ay ugu jira meesha meel ugu ordaama aqaanay nolosha dhan baaba soonka sidaan u lahaa afurkii lagu adimin maxaa la dhahay afurka iska dhamee dhaqso jikada ka bax wili maskaxdeedii waxa ku qufulan soonki adduunka waxa u nacbaa in lagu adimo inuu jika ku jiro waxa jeclaa in saacad ama 30 daqiiqo ka hor jikada ka baxo marka hadda waxaan arkay anoo isboobsiinayo wili soonki maskaxdeedii ku qufulan saa isweydiin maxaad isku boobsiinaysaa markaan fikro ma aqaan waxa isku boobsiinaysaa waxa xasuusan maskaxdeeda wili adinka iyo barnaamijka soonka inuu wili igu jiro marka alxamdulillah ilaahay mahad iska leh hadda sidaan u soo dhameeyay kadib waxaan kaloo ku soo darayaa avocado anaga xaafadda cabitaanada zaidka looga cabo waxa kamid ah cabitaanka passionka iyo avocado iyo cambaha aadaan u jecelnahay marka hadda waa kana hadana avocado ku soo darayaa qayb kana asagana babyga yariiska u reebaya mashiin gooni u leeyahay mashiintiisa ugu soo shiidaya iyo biyihiisa goonida ah dadka waaweyn wuxuu looguma dhex daraayo marka waa kana hadda sidaan u soo dhameynaa kadib waxaan sameynaynaa waa iska soo shiideynaa waxaan rabaa jikadan inaan hal mar ka soo farxasho adiga xataa tan kugu jirto demo shaqada isku daahisid demo maxaa la dhahayo waqti ka dhamaana adoo daalan jikada ka bixis marka hadda halkaan aan ku soo shubanaynaa cabitaankeeni waxaan kaloo ku soo darayaa sonkor xoogaha ah meeshaan aan isku soo shiidayaa si fiican aan isku soo dhaxgelinayaa kadib waxaan sameynayaa garaafahoodan ku soo shubayaa waa isku dhamaataba maxaaba soo harabo wax soo har ma lahan shaqadan qabanayaan inkastoo iska yareedo baasto ee waqti badan ba qaadanayeen waqtigeed iska kooban yahay kadib waa kana halkaan cabitaanka meeshaan waxaan ku soo shubayaa weelkeedii waa kana garaafahan ku soo shubay fridge lama gelinayo in yaroo dadka waaweyn uba fridge gelinayo inta kale ilmaha banaanka u ooleysaa inta meeshaan iska qabowdahay uma baahna in ilmaha fridge biyo loo geliyo kadib waa kana hadda xilliga waxa la gaaray ilmaha dugsiga ka imaadeen qadadii meeshaan la soo diyaarinayaa oo la rabaa in la soo siiyo meeshaan asaan ku soo diyaariyaan ku dhigay iska arag lagama sheekeyn karo baastadan la soo tijaabiyo war laga keeno maalin kasto hilib lama cuni karee maalin dhexda noo mariyaan ku dhexda kadib alxamdulillah waa kana saxanka labaad asagana sidoo kale u soo ridayaa marka waa isku soo dhamaatay kadib jikadeedan ku soo laabanaya 4 weel oo taala iska soo biyo raacinaysa guriga mar labaad iska uuminaysa nasiina hadaa seexanaysid seexo hadaa wax akhrisanaysid akhriso hadaa wax kala qabsanaysid qabso
jawigaaga ha kuu degnaado maxaa gabgab ku geliyabo. hadhowna casirkii oo kale baan jikada soo gelin cashadeeda iska boobsin inkastoon iigu jirin cashada waxaan soo duubay. meeshii maqribka ku tukatabo gurigaaga nadiif ahaada shaqanayo kuu oolin ka sheekee. marka waa kana hadda waa lasoo cuntay ilmaha cabitaanahooda soo shubaya alxamdulillaah wax kasta waa isku soo dhamaadeen. kadib meeshaana waxaan soo qaatay luubaanan biyo lasoo dhigay haddadaan aan idiin soo duubayaan lasoo dhigay 24 saacadood kadib waxaan rabaa inaan ka dhigo wax wajiga la marsado. dadka ila jooga ilaa dhamaadka insha Allah next video ka soo duubi doonaa luubaantaas ay ku soo baxday iyo sida wajiga lagu marsado. sidaas in nabadgelyo isku ognahay. like iyo subscribe yaa naga iloobin iyo commentiga. intii hore ila joogday waa mahadsantihiin. intiina kalena waxaan leeyahay nagu soo biiro insha Allah farxad bay noo tahay inaan nagu soo biirtaan. like teena yaa naga iloobin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. باي.